الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين والمرسلين أما بعد halkan waxaan ku joognaa ardaydii 10 ahayd ee gobolka Sanaag laga soo xulay jaamacadiisa waliba ku yaala dawliga iyo private-kaba sideen wada ogsoonahay wasiirku wuu hadlay bishii September aakhirkeedii waliba 15 dambe saxaafadu la soo istaagay wuxuu sheegay in sanadka la helay 300 arday oo scholarship 300 scholarship ka 100 kamid waxay hayeen shahaadada master degree ardayda bachelor ka dhameysay baa loogu deeqay okay 100 ka arday oo master ta ah waxa lagu beesgareeyay gobolada koota gobol kasta wax loogu xidhay gobolka Sanaag wuxuu xaq u helay 10 arday buu koota kaga helay 100 ka arday 10 ka arday habkee loo qaadanaya ayay wasaaraddu soo process gareysay waraaqahan hayo waa habkii wasaaraddu soo process gareysay sida darteed gobolka waxa jooga arday ka soo baxday dhulal kala duwan waddanka dibadiisa gudihiisa dalka gudihiisa isaguna sidoo kale waxa jirta ardayga wax ku baratay jaamacadaha dalka ku yaala waliba ceergaabo wasaaraddu waxay notice ku siisay ardayda in prioritize la siinayo ardayda ceerigaabo wax ku baratay ama gobolka Sanaag jaamacadiisa wax ku baratay oo graduate gareysay bachelor degree in iyaga la tixgelinayo okay conditionkii ardayda lagu xidhay jaamacadka loo qaybiyay si dawliga ahayd iyo kuwii private-ka markii loo qaybiyay waxa lagu xidhay GPA wasiirkuna wuxuu sheegay 3 something wixii ka sareeya inay ardayda loo baahan yihiin oo GPA-gooda 3 ka sareeyo okay ardaydii jaamacadka Golis East Africa iyo Sanaag waxa lagu soo xulay GPA 3.2 way ka wada sareeyeen qaarkood A+ bay ku dhawaayeen okay ardaydaasi markaan wasaaradda u soo gudbinay waxa naloo sheegay inaan hadhow tartan dambe aanu galeyn ama exam dambe aanu galeyn ay tahay 10 kaasi qoondo sidii ay cadeeyeen ardayda ka soo baxay jaamacadaha Camuud iyo Hargeysa markay u tageen baro saabka Timbaro oo wasiirka u garaacay oo marxaati ay ahayd cad oo wasiirku yiri gobolka 10 kaas aan koota ugu xidhnay 10 kana ardayda gobolka wax ku baratay waxa qole okay tii ana sugaya ayaa khamiistii waxa la soo saaray liis ardayda ka kooban 73 Hargeysa 5 Gabilaya 15 Boorama 5 Hargeysa okay waxaan isweydiiyay ma GPA baa ku hadhaado ceergaabo jooga mise wax kala ku hadhay okay GPA-gi markaan la eegay waxaanu eegnay GPA-gi mise qaarkood waa naga wada hooseeyaan dad sooy markaa baan uga hadhay baan isweydiinay haddaan GPA loo kala helin marka waxa noo soo cadaaday inaan musuqmaasuq cad dhacay musuqmaasuq laba tusaale aan siinaya inuu dhacay markii hore koota la yiri oo wasaaradda condition ka soo baxay waxa koota in loogu xidhay gobolka okay hadii koota loogu xidhay oo wasaaradda amarkiisa ay soo filisay jaamacadaha isla qaateen oo ardayda la soo xilay way isku bedeshay mar labaad miyaa notice la soo siiyay la yiri GPA ba ardayda lagu sii xulaya markii Hargeysa la geeyo ardayda la midka ah oo Hargeysa ba GPA laga xulay sidoo kale ardayda Hargeysa limitkoodii waanu haynaa intii loogu tala galo waxay qaateen qoondadii 40 bay qaateen waad aragtaan 40 bay qaateen gobol Sanaag 10 buu qaatay haddana 73 ba jaamacadaha Golis Hargeysa laga soo xulay dad way 3 kaasi xagee ka yimaadeen waa su'aasha meesha taala waxaan u sheegaynaa waa iska cadahay musuqmaasuqa ka dhacay jaamacada haddaba wasiirkii kelmadda ku celcelinayay sanadka si fair baan u qabanayna ayaa hal aayad u akhriyaya wasiirka waxaan leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la tafcaluun haddii ha oranina haddii aydan waxa sameeyeen markii hore inaan noo sheegtaan bay ahayd inaan marka gobolkayga Sanaag aan waxba helayn annaguna waa ku qanacsan horaba waa naloo dulmi jiray haddaba su'aashii isweydiinta waxay tahay reer Sanaag meeyaga faahsanayna waa state gooniya baa su'aasha meesha taala ila kaba mid ah Soomaaliland isku xaquuq ma aha ardayga Boorama ka soo baxay iyo ardayga Hargeysa ka soo baxay waa kuwa isku xaquuqda noqon waayay ma ada country ba ma state kala waa su'aashan isweydiinayno waa ta aanu aqoonyahankayaga iyo dadkayaga haldoorka aan isku iimanayna inaanu kaga tashano bal inagu xageeynu nahay hadii Soomaaliland ina garan weyday inagu ma state gooniyana waa waxaan kelmadda ugu badan hadda ceergaabo ka dhex muuqata shacabkuna waxaan u cadeynaynaa in la dulmiyay dulmi cadna loo geystay anagoo markii horena dulmaysanay akhastana looga dhacay waxbarashadiina tagtay kuwa hore ka camanayay dulmiye annagana waa nala dulmiyay annaga aqoonyahankii gobolka annaga waxaan baranay waxa iska harsan baanu garan la'aanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh